السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هلكا نغا داوانيسان وا جانا غلافور اوفيشال هدا نغو عصبتاي سبسكرايب لايك شير كومنت انت بوا حقيني ولا ليال إلهي سبحانه وتعالى أيها قفل بهميجيس جارسين كرا كسكون ولا لينا صوماليد وين جارسين كران هذا بولا ليال وحنا نقعد سنة سبسكرايب لايك شير كومنت هدا هرينا لجوكتين أو صاحب كان هيدنا شير جري سي صاحب هذا كلا أن أهلنا ولا لايك ومهم أي إنه تاي لينجري موقع كنو لينجري نو شير جري أنت بواتكم هاتسنتين إذن كان وحبة إذن كمان دي سو أننا ندير جلين أي تاي هذا هلكا كي يقولوا ولا ليال ما أنت ما حنين سيدا إلهي سبحانه وتعالى سومالي حتى سجاشن السجال برعيب تهدو إلهي قريو ما أنت بقولات إلهي كوم درايا الله ما فهمتين ديق بن آدم كان مقر صومه ويوقفك بن آدم كديق سب مقر صومه هذا إسقارسي يعني أون لو أركن حتى يوم القيامة إلهي كاجرسنا هدي كلا إلهي وحقوق فشلا أدونك الحديث أيوقوق فشلا يا كدمنو والو قبنيا حد جالس لقى أوفنيا مركا أرنتاس وحام سوقاتي أو حيتها ولا ليال مانين تيشلي واحد عادي إن لبويل لو حكم يجروه أيوة سميه كفسي يدل سوجره هذا بولا ليال واحد عادي gabar afar toban jir ah inuu nin soo kaxaystay masaafo ahaan u soo kaxaystay kadib markuu garow boosaaso uu keenana uu kaga tagay banaan cilla marala markuu banaan cilla kaga tagay waxa dhacday in laba nin oo shaydaama ah gabadhii ay heleen kadibna ay wateen gabadhii kofsi iyo dil isugu dareen waxa jirta gabadha mar alla marka la kofsaday ayaa waxa lagu ceejiyay camaamad sidee sheegayaan ayaga afkooda ay ka qirteen camaamad ay ku marjiyeen mar alla markay camaamad ku marjiyeen iyo hadana waxay sameeyeen gaariga taayirkiisi ay u dhigeen hadana ay madaxa ka mariyeen a'uudu billahi min ash-shaytaan warmiyaysan naxariis leen kuwaas naxariisna looma dhalin miyaas naxariis ma leh kuwaas inta sameeyeen gabadhii marji ku dileen ee hadana baawur ay mariyeen lugtiisi madaxa dhan ay ka turturtay waa gabadhii ayaan dhaxdaas social media wararkeedii yaalay ee wajigeeda lama garanayo lacag loo soo aruuriyo talaaji ku jirta gabadhii la hayway waxaan aad iyo aad ugu mahadcelinayaa ciidamada booliiska ee Puntland iyo garsoorka Puntland kuwaasoo loo gacan ku dhiigliyaalkii gacanta ku soo dhigay kadibna dil toogasho ah ku xukumay هذا بقبل مسكينة هاي عدالة وهشي لكن وإن لو دمستراه أو نمكي تير كلجيا لتوقتها أنا الصومالة دانا وحن كسينا قعن بده وحلي هذا قفا دل توقش لو الحكومة ميل وجود لي إيميل كلام لما أجابه صومالة أنت مسق كل حجرتنا والله إني سهجاجين وحال دوني يا قفك إن شرعي آد كحكمتي إن آد هذا نكون مريسه ويجي سعد مريسه marka gabadha maskiinta ahayd cadaalad way heshay balse laakiin ha loo dhameystiro dadka dilay waxa ku jiro wiil da'diisa aad iyo aad u yartahay laakiin shariicada islaamka markii la maray waxa la ogaaday in uu yaani mataqaana uu ka dambeeyay falkaasi kadibna uu qaangaar yahay qofka duu qaangaar yahay sharci uu qabtaa laakiin haduu san qaangaar yahay sharci ma qabto ninkii soo kaxaystay ee keenay magaaladaasi asna waxa lagu xukumay hal sano oo xarig ah iyo $500 ayaa lagu xukumay ganaaxa walaalayaal nimankii falkaasi sameeyay waa niman faashiliin ah waa niman Ilaahay subhanahu wa ta'ala ka furtay bal aan kor dhicine nala daawada dhigay nuur salaad meel u dhow fadhiyay gabadha meeshaas u dhigay horay u dhigay markuu hore u dhigay gaariga gadaal buu soo qaaday gabadhu gaariga ku aadiyay oo si saar waa ka sii tagay taayirka gaariga maray oo madaxu kaga istaagay dhinaca madaxu ku aadistay taayirka madaxu kaga istaagay waana ka sii dhaqaajiyay gaariga ma nooleen markay dhimatay inkasaan qiraal aan nahay oo dambigeena aan qaranayno gabadhii anagoo doro laba waa u tagnay gabadha waa u gacan dhaafnay saas ay tahay gabadhii haddana waxaan ku sameynay inay iyadana baxrayso
هذا وساد ركتين وعلى لبدين فالكاسي جيستي halka aan naga daawanaysan waa Jana Galafoor official hadii aad nagu cusub tahay subscribe like share comment waa xaqiini hadii qof walba oo qof dilo sidaas cadaalad loo soo qabto tiirka cadaalad lagu geeyo wax dilo lama arki lahayn waana kulligiina Soomaaliyeed meel walba joogteen waan idin salaamaya sida iyo nabadgelyo wa salaamu calaykum wa rahmatullaahi wa barakaatuh